Assalaamu calaykum asxaabta, waa idin salaam meel kastoo adduunka ka joogtiin. Kusoo dhawaada channelka. Waxaa idin leeyahay kulla caam wa antum bikheer. Waxaan rabaa maanta inaan sameeyo buskud 2 kiilo buskud aan rabaa inaan sameeyo. Marka ugu horeysa waxaa soo qaatay 10 xabo oo kun iyo 4 bakeeri oo waxaa kusoo darsanayaa ujeedin oo bur maalda sokor marka waa isku soo qaseynaa gacanta ku soo qaso makiinada ku soo qaso qaado ku qaso saac ceshahay aan wax yar gacanta ku soo qasay kadib geedkana u soo qaatay wax yar markuu soo dhaxgalay kan hal bakeeri caano ku darsaday caano bud qof haday hayso ugu darsan kartaa hada waxa haystidne saana ugu darsan kartaa soo qasan hal bakeeri oo caano ku soo darsaday marka geedkana saan u walwalaaqaa ujeedin wuxuu ka saacidaa inuu wax shiidan camal inuu noqdo oo sokortan ciyow ku dhalaalay gacantana marka halaabayso makiinadna uu maarmi kartaa marka geedkana saan isku soo dhaxgelinaa zaida uu soo dhalaalaa caanaha wuxuu noo saacidaa oo soo u qoynaay oo macnaha qasnaay inuu ciyow ku dhalaalo marka sidaan u qasinaa kadib waa isla arkeena waxyaabaha kale oo soo darsado so easy waaye marka subscribe noo taabta idin leeyahay asxaabta like noo taabta wixii oo fikradaada ama waxa jeceshahay inaan ku soo sameeyo ama waxyaabaha hada videogan su'aal ka qabtid comment-iga noo soo reeb insha Allah marka hada sidaan isku dhaxgelinayna hada ujeedin si fiican isku soo dhaxgelinayna oo sokor soo dhalaalinayna markaas arkeena marka waxyaabaha kale aan ku darsan lahayn la socod wanaagsan waxa markaa soo dhameeyay hada waxaa soo qaatay hal bakeeri oo soo shubtay manidisin bakeeriga labaad waa kana bakeeri saddexaad oo soo shubtay 3 bakeeri oo soo shubtay meeshan waxaa ka haystaa bakin halkaas xaba u baahan tahay hadii oo bakinka la cabraa uu yahay hal qaado oo ku filan tahay iyo carfisa soo qaatay si oo fiican oo soo carfo waxa soo qaatay 2 xabo carfiso oo soo shubanaysa sagane sidoo ku soo carfa buskudka xaafadaha dhan oo gaara laga sheekay karo akana oo soo qasooya hada si fiican isku dhaxgelinaysa caanihii suugi iyo maxaldaha iyo bakinka carfis waxa dhan hal mar soo dhaxgeliyay waa ka soo ujeedin sidana soo sameeyay si fiican isku dhaxgelinaysa ujeedin caanaha maaldaha sokorta dhan way dhalaashay hada burka lagu kortara burkana inuu ku soo cabirnaado waa muhiim 2 kiilo oo juusta inuu ku ahaado waa muhiim hada si fiican isku dhaxgelinaa mujeedin oo sidoo noqdo sagoo dhan sokorta dhan ma laga arkaayo hada waxa soo shubtay bakeeri bur 2 3 4 ilaa 8 oo soo shubanaa marka hore ka bacdi 2 kala ku darsanaa kasta oo shubanaa macna 2 kiilo bur had 8 koob oo shubanaya ujeedin waa soo qasaa gacantaada lagu soo qaso markaas soo qaso 8 koob oo bur 2 koob kala soo darsaday 2 koob kala markaa ku darsado koob kala soo waa ka soo darsaday 2 koob waa isdhaxgelinaa hadana markaas isku dhaxgelinaysa si fiican isku soo dhaxgelinaysa hada soo ujeedinbo markaas sidoo noo soo baxo isla arkeena waa kana hada diyaar u yahay wax yar saliida kor uu korshubanaya kor kasta soo shub bas diyaar uu ku yahay hada makiinada soo qaatay hadana gacmaha soo nadiifiyay makiinada soo qaatay waa ku riday saliida kasto soo mariyay si ay kaaga dhigin gudaha iyo afka saas loo marinaa ka bacdi waa shiidinaysa biskudka dhaadheerka oo Soomaali oo caadi ku soo baxaa kule maasha Allah kan koowaad soo sameeyay kan labaad asagana sidoo kale sidaas oo soo wadanayna
iyo noocyada kale iyagana kuwa ku sameeyay waa idin tusaa hadda qaabka uu sameeyay waa idin soo tusi doonaa haddaa jeceshiin waxyaabaha ku sameeyeen haddaa jeceshiin video idinka soo sameyn doonaa commenting nagu soo reeb haddaa daniinaysid waaye oo aad rabtid inaad sidaasoo kale u samaystid hadda kan laakiin qof walba Soomaali wuu yaqaanaa buskudkan dhaadheerka sida caadiga geedka waa kana noocan waa jiraa ay nooc waaye haddaa jeceshiin iyagoo badan noocyo badanaa jiraan meelaha laga helaa iyo waxyaabahaas oo idin soo duubi karaa sidaana ku sameynaysaa burka gelinaysa saas sameynay diyaar ku yahay kuwa dhaadheerka waa kuwana sidaan inoo naqdeen markii la soo dubay kuwa oo baranbaaska kaleetana waa kuwana sidaan quruxda badan ay kusoo baxeen ku dhahay markii la soo dubay iyagana waa kana noocaas dahabiga macaan kana waxa waaye wax amal u samaysan yahay saa ujeedin markaas isagana markii la dubay iyo kuwan iyagana ciid mubaarak waxaan leeyahay kul caam wa antum bikhair mac salaama